عن كافره عبدو صاحبه يقفر أنا وياه صاحبه عبدو إسكورمبو أهلا إيوه وسهلا ساكن نبى صور عيه صاحبه أنا كرمك صور العنة لقى إحنا مية عفماتك يقورمبو وروان وأنا هي صور دو صوص عفر دقان فريسنة مرياني شاهنوكن ور أنا مرتي هي صاحبه سيدا واي أدمع من كيان جوجابه هرتا كرسي قبل كفريسو ما أنت لقوا هياي وين لقوا صور دويه صاحبه أقول هي قعنتها سيتاي والله وادركتها إمي كوي عافمات قبتها الحمد لله صاحبه ما أنت نبرك فوق عاي يابا إلهي كان قعنتها سافيعنا هيسا مثلهن لكن وحنك ورثها لقى الجبيا محاكو جيهرت ما أنت سال واسك قرال الله لقى جبينتنا وين حول بدنتها ظروف بس مالتها يجيسي صاحبه ظروف جرتها هرتا نيهون نينك علي دهايو نينك تلحون أبد كيم أركن بان هي ما حد كنت تري ميا الله تشط ماي لكن صاحبه نينكاسي وأوجه كودت كيسة مالن تيد أوجه أو تلفون كل سو هالليسي ولا جوجو حال كان أسرع ورم سيس كديه دي أركل هاد جابا إلى كوكين لاي مركل لسه هلا مشقة كودة شرتي ما يسوق أيا ودفديني نينكو نين عن هذا ما نينكو سوق بس جاب ديسكو هايو كوير واحد ما هايبو نينكا علي صاحبتي نمديسو ما وارث صاحب صاحبه وحول كفير سالين warnikaasi naga dhaafurkiiso horta xaafadii iyo ciyaalkii iyo xaaskii kaamabaan waraysanine horta awr carruurtu mise hayn صعوا آدم عافمات قبنا المهن أفر واعي حاسكنا كنا حسيك هذا إسكوالته الحمد لله رب العالمين واسك عافمات قبنا واحد ما قبنا hore ayaad igu sheegtay xaaska oo ganacsi maxay ahba ku jirta دكان يرى ماشان سوق إكواس تايو بكيرياشو باقوليال سحمو سرفيال أي ماشان كبتا iiga waran sidii hawsha guriga iyo ganacsiga isugu wada horta naagahan malo tilmaama sidii minkeeda iyo ilmaheeda u maamul lahayd waa runta taabaydhe sacawo cabdiyow unagu waa ku noo qabnaa shaqadeeda oo beesada yar ay ganacsi ka soo saarto mininka iyo owlaadda ayay dib ugu soo celisaa waan gartay niyahow anigaba gabadhaydu halkan yar bay mis khudrada ku hayn jirtay waa kasi dee waswaas iyo dibad nacayb ayaan uga fadhiisiiyey maalintii aan ka fadhiisiiyey ayuu culayskuna ifula maxaa ugu diiday diinta muu diidan sacawo aad iyo aad uga daran tahay maxaa ugu diiday adigu talo xumo uun ku dah cabdiyow maanta xaalkoo arkoosaye dib u fikir caafimaad ilaahan kaaga baryaa saahbo kistaana hoob xaafad masruuf ugu dhigbo warniyow khayr allaha ku siiyo meel fiican baad igaga soo baxday waa kasii tagaa koobdheh dumaysidee maryanne ha ku caawisee ganacsigeeda u oggolaaw waa ballane imika shaah bay inoo soo karinaysaa ee balyarsu maryanay haye cabdiyow iska warran ninkan cusub ee ku yimidna yuu ahaa waa nin wanaagsan oo aanu saaxiib nahay dhismahan ka wada shaqayna halla dadka dhismuhu noocyo badana caliba wastaad buu ahay dadku isku wada mid maahay dhismaha ma dad xuma ayaa ka shaqeeyaad maqashay mooji maxaan ka aqaanaa dee hooyo inoo soo adag intan yar buu ii dhiibay hooyaa kuu dhiibay ma ninka maanta oo keliya unina soo booqday haa isagaa gartay anigu waxba maan weydiinin ma sidaasaa inoo dambaysay cabdiyow inaan qayrkeen gacmaha hoos dhiganno ismaan lahayn cid kale ayaad gacanta hoos dhiganaysaan balse way dhacday ma dhicine adigaa sababay xilligaasubaad eedda iska weecisaayey maxaan sababay anigu ma inaan dhaawacmo ayaa sababay iminka haddaan ganacsigayga yaraa iska wadan lahaa miyay waxaasi dhici lahayn bay kula tahay adiga oo ninkaana soo booqday aan shaahu waayi lahaa horta intaan shaaha keenku lahaaba waad isnabaysay show shaahaba kuuma oolin hadduu shaahiyaallo adigaa cabbi lahaaye horta sow maa dareemin waxaan cadceedda u fadhiyey inay ahayd danteennu haa waan arkayaa oo ninkan imika lacagta inoo keenayba xaaskiisa ayaa shaqayso ways caawiya intaad kuwa tala xumayaasha la saaxiibaysay maxaad ninkan oo kale uga tala qaadan weyd horta yaa ku yidhi cid buu ka soo tala qaataa arrinkaa go'aankiisa keligay ayaa lahaa sheekh maxamedkan agteennana waan soo weydiiyeyba oo markaa muxuu ku yidhi sheekhu dee waa caadi buu yidhi diinteennuna waxba kama qabto inay dumarku ganacsadaan dee bal waa kane adigu waxaan xunee ganacsiga ceebta kuugu sheegay muxuu ahaa eeg aniga unbaa lay taag waayey imika xaaladda dhabta ah waynu aragnay maryanay imika wixii ka dambeeyana ganacsigaagii waad ku noqon karta yaa makaa dhabbaa cabdiyow kaalay hooyo iga guris cunta oo maxaad bariiska u cuni weyday hooyo hooyo alxamdulillaah waan cunaya ii soo laabo markaad geyso weelka dawadii sooma haysatid haa dawadii iyo biyihiiba waan haystaa ay hooyo way kan hooyo sida aad iigu yeedhayso ayaan kuu ahay dhib la'aan baan ku dhalaye sow ma ogid haa hooyo waan ogahay hooyadaydii labaad baa tahay hooyadii ku dhashay baan kuula mid ahay halka faysal ii joogo ayaad ii joogtaa marmarna waabaad iiga dhowdi kula kaftame soo markii asmii maqan tahay un maaha alla hodane
dareen kale ayuu ku geli gurigaad ku dhalatay haddii aad ka soo wareegtay kanad u dhaxdayna waa kiiniyu anna hooyuun baan idiin wadaahay iska dhig qof qoyska ka mid ah caadi iska dhig baad leedahay haa waa sidaasay dhegaysa haddaba wixii aan kuu lahaa ii soo laabo ayaan kuu sheegayaa haye hooye siina baan ku dhegaysanayaa hodaney hooyo waxaad doonayaa adiyo walaashaa yaasmiin inay isu calool xaadhnaataan waa sax yaasmiinna way kaa weynti inay isu cadhootaanna waa laga qurux badan yihi maalmihii dhowaana hantidii ka burburtay iyo ganacsigii iyo waxla'aanteedii haysatay bay ka warwaraysa waan dareemayay hooyo imikana ilaahay baa mahad lehe shaqay bilowda shaqo maxaya oo ma cid ba u shaqaynaysaa haddii aanay hanti haysan inay hantiilayaasha u shaqo tagto sow maaha sida laga badin waayo uunbaa la yeeli waan idiin ducaynayaa hooye waxay idiin qabatay waad og tahay fadhigiina waa taa kuu daysay adiguna xumaanta iska saar haye hooye waan kaa aqbalay waa ducaysantiine orodoo faysal qadada u gee wuu la joogaa yaasmiinay maadaama guriga bilkiisa yaraaday bariiskan qaraxa gaajadun iskaga qaboojiya hodan bariiska qaraxa haddii la helayo waa alxamdulilah odanay hooyo way ku sheegtay soo maha inay yaasmiin meel shaqo ka bilowday adigu sawtaad ogeyd miyaad ka qarisay waxna wuu ii sheegay waxna wuu iga qariyey walaal carwo qalabka guryaha lagu iibiyo ayaan shaqaale caadiya ka noqday insha allah ilaahay ha barakeeyo waa lagu meel gaadhi uune waxaan doonayaa yaasmiinay inaan iscafino maalmihii dhawatoolaan kugu kululaaday dantaydun baan eeganayay cafis baa tahay walaal macaan yaasmiin walaal waan kuu ducaynaynaa in ilaahay khayrkaaga dhigo shaqadaa hodanay waad mahadsan tahay adna faysalow durba xisaabtii diiwaangelinta ee alaabta la iibiyaadi bartay waan ka faa'iiday adaa mudan walaalo idinkoo mahadsanaan idin weydiiye ma waxaa idiin wanaagsan aan isku dheri wada ahaano mise inaad labadiinu dheri gooniya yeelataan bismillaah arbaabka maraayid wax ka culus armuu jabaa intaan riixaayo eedda ma jabayee aayarun alla waa yaasmiin eedama dukaankan baad furatay maya eedda shaqaale un baan ka ahay ii warran soo ma fiicnid eedda aad baan u ladanahay dukaankan masaami baad ku leedahay mise shaqaalun baad ka tahay eedday sawdigii ogaayeen khasaare ee doontii badeecaddu ii saarnayd baddii igala degtay hadda shaqaale un baan ka ahay halkan gabadh wanaagsan baa tahay ilaahay waxaad mulkidaha ku siiyo dukaankii iyo mid kanoo kaleba allaha ku siiyo aamiin eeddo aad baad u mahadsan tahay adigana ilaahay ha ku darajeeye maxaan qabtaa horta waa taa arooskii inanteedoo dibdhac ku yimi waan ogaa dalabkii doontii buu ku raraa waxyaalo kalena dib bay noo dhigeen laakiin iminkana arooska hawsha sii wadnaa sariirihii hurdada fadhiyadii iyo qalabkiiba way yaalaan ayagoo kala duwan midabka iyo qaabkaba aleela carwadina aad bay u camiran tahay sow maaha kanaaba ka weyn tayadii hore shaqaalo badan baadad leedihiin buuggan baad ka eegi kartaa carwada alaabta taalloo dhan intaad ku dul wareegi lahayd dhex socodkooda haba ku daalin dheh waa hab casri oo dadka soo jiidanaya waa sidaa halkan fadhiiso biyahan cab goortaad buugaagta ka xulato ayaa lagu dul geynaya qalabka eedda waad mahadsan tahay markaan ku indha daraandaro dee waad ila xulaysaa waxaad samayn kartaa sow kuuma joogto inanta ku aqalgelaysaa haa way joogtaa si ay kuugu timaaddo sow telefoon uguma yeedhi kartid haa laakiin kuwii berigii aad dubay noogu dirtay uunbay rabtaa halkan bay yaallaan buugganay ku wada jiraan eeg kan fadhigii sow ma ahayn kana hurdadii xagga dambe soo rog kanna waa qadadii eedda imisaa layga siin doonaa intoodaba haddaan daahiya lagu darayn waa $5,500 oo eedda waa qaaliya kuwii dukaankaagii baa jabnaaye dib ma laha imikaba waa lagula saayiraya oo imisaa layga daynayaa lambarrada qalabkaad buuggaad ka xulatay baan kuugu qoray waxaad ula tegaysaa gabadha xafiiska muraayadda la fadhida deetana waa milkiilaha ayadaa qiimo dhimis kuu samaynaysa insha allah lacagta markaa xisaabiyaha u gee markaa daahiyada bilaash ma laygu raaci ilaa dukaanka habeenkii heesaad ku cawaysaa haa hooyo marmar baan isku maaweeliyaa heesaha dhallinyarada bal warran bala ma jidho hooyo aad baan u fiicanahay waxaan ku weydiiyey hooyo caawa halkeed ka timi xilligan intaanan xaafaddii tegin baan siri ikraan siima waxaase dabadda ku soo arkay gaadhi aad u qurux badan yaa watayna hooyo waa kii qasnajiga hee maxaa ku dhacay qasnajiga ma gaadhiga noocaan u ege qaaliga abuu wataa qasnajigaagu ama waxbaa ku jaban hadduu wato markaa ma ninka gaadhiga noocaa ugu wataa ayaad qasnadaadii oo dhan ku aamin hooyo waa wiil miskiina wax dhibana ilaa haddeer kuma arkin xushmad mooyaane maqaar balaysanba wax kuu soo sheegay waa miskiinuu dheh ilaa maalintii aan ku weydiinayay ikraanay naahoy aad ugu fiirsan ninkan aad maalkaagii oo dhan ku aamintay insha allah aragti baan u yeelanahayaa haddeer lafteeda soo uma jeedid siduu gabdhaha dharka iibinayo u caawinahayo bal caqliga ku siiyey inaad qasnadaada oo dhan qof ku aaminta bal ii sheeg hedhahooye shaydaanka iska naar bale allaha naga hayee biyo ma kuu keenaa mise shaah baad cabbi naashaah iyo biyo toona dooni maaye maxaad horta ninkan ugu doodaa markaan kula soo hadal qaado bal iigu yeedh horta war aadanow walaala kaale bal hooyaa ku wacayse edow waa imise dharka aad bishan iibiseen maxaa raasamaal hee yaal maxaa faa'iide ah
maxaa la soo siiyey markaannu laydhkii iyo kiradii iyo biyihii ka bixinnay waxaa yaalla $2,000 oo faa'iidadii aannu hellay ah waxaannu iibinnay dharka dumarka oo gaadhaya 4 dersin waxaad ii sheegtaa inta darsinee dharka kuu yaallay iyo inta aad iibiseen bishan hooyo waxaa yaallay 18 darsin inta iibsantayna waa 3 darsin bishan waxa uu qasnajigaagu ii sheegayo iyo waxa aad ii sheegayso farqi weyn baa u dhexeeye bal xisaabtiina ku noqda farqiya eedda wax waliba way qoran yihiin hooyo annagaa ku noqonahayna xisaabteeda farqi baa jiree ku noqo xisaabtaada ikraan imika wax ma kuu baxeen gabadhay السلام عليكم أو جامعو وعليكم السلام إسرائيل لكن أوجا ما قاعدين نسوق صوصعو iska daawaad gaadhaye caawa jarjartaa ma soo fuuli kari waayey maadiga inaad orod ku soo qorto aanu neefturin bay ahaydee bal soo fadhiiso alla maye xoog baabad ii ammaanaysaay oo kaalay waxaana waraaqeed caawa isku habaynaysaa maxay ahaayeen waxaan oo dhammayn waana shaqado aan tusayno macmiil dhismayaal kala duwan nooga baahday xafiis injineeriya waraaqe inaan la kala waayin baan ilowsanaa haahey xaalkaaga ka warran isre waxaaban islaa wixii maalintii dhoweed dhacay darteed kugu soo noqon maysee jaamac adiga muu ahayn qofka qaladka sameeyey waxaan u malaynayaa inuu odaygaa warsama uu xanuunsanayo oo aanu maskaxiyanba fayoobay intuu ila joogay weligii sidaa muu u dhaqmin waan yaabay waxaanse ku farxay inaanay waxba ku soo gaadhin alxamdulilah wuxuu ku talagalayba allaa iga nabadgeliyey aynu nashqadii ku soo noqonno isir labadii nashqadood ee moolka waad soo eegtay ka warran teebaa ku cajabisay maasha allah aad bay u qurux badan yihiin labaduba igraacna waan tusay kanaanu jeclaysanay isku dooq baa noqoteen soo maaha malaha way hidaraacaysaa kan afargeeska u dhisani kuma cunta mid soo maaha maya isaguba aad buu u qurux badan yahay kanaa saka qurux badan dhululubada u eg noociisuna kuma yaalla deegaankeenna waa runtaa isir qiimihiisu uu fiican yahay waxaana rajaynayaa inaad ku qanci doontid way badan tahay lacagtiisu laakiin moolka quruxdiisa way u qalantaa waan kula saa'iri doonaa waxyaalo badan iminka aad baan hoos ugu dhigay si riyadaad u rumowdo waad mahadsan tahay halkii $500,000 ahayd waxaan kaaga dhigay $450,000 laakiin waa hal dabaq lacagtu soo ma sii badna mool dhismihiisu tayo leeyahay ayaan ku talagelaynaa waxaan doonayaa inuu noqdo mool lagu tilmaansado deegaankeenna toosan taas annaga nagu hallee nashaqadda aad buu uga fiirsaday markuu samaynaya faarax ma inankaaga faarax baa sameeyey oo ma injineer kalaa haa anigu waan la eegay un badankooda isagaa leh waxaan maqli jiray uun geed midhihiisuu dhalaa injineer dhalaa noqoteen haa sow adigii inantaaduba ganacsade dhalay maydu noqon waa run geedkii midhihiisa dhalaynu noqonnay innagu halkan eeg nashqadda faarax wuxuu ugu tala galay injineer faarax dhadee taada miyuu kaa boobaya xaqiisa sii daa inanka haya siiyeyba injineer faarax halka hoose nashqadda wuxuu ugu tala galay gaadhi dhigashada wareegga oo dhanna muraayad buu noqonayaa injineer faarax nashqaddan aad buu ugu farayaraystay wakhti buu geliyey markaan nidhi isir baa loo samaynaya maasha allah inankan ilaahay ha noo daayo gacantiisana allaha u barakeeyo aamiin dhismahani weliba aad buu uga cajiibsanaanayaa kuwa badan xitaa sugnaanshaha amnigiisa aad buu uga fikiray faarax maasha allah injineer faarax waa suuq geyn karaa soo maahan ma naftiisa mise xirfaddiisa